jiray buuxsha aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي من ربا دولة كجوكتان كسو دوادا كريبتا صومالي ميديا وأنا دي كلا وداقنا أركتي دا تكنولوجيا دا بلوك جاين كريبتو كارنسيغا حوران تيدا يا فرصدها أي داليرادة صومالية كهلي كريان لنا عمركا نغطو ترايل كايا مالغاشيغا سوقا حورتا دولة العاقا كريبتو كارنسيغا لا يسكوي دارسدو هذه التكنولوجيا دان بلوك جاين كي كريبتو كارنسيغا آد كو عصب تاي وحاد بوغان كريسا كورسوين كينا العاق لآنتا يالا crypto.com website kala yiraahdo bogga casharada ku dhufsan kare waxaadna baranaysaa ama aad fahmi doontaa in aragti guud iyo albaabka laga soo galo teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga aad gacantaada ku dhigto bani senti iyadoo laga qaadan ama aadan waxbaba sign up garaynin. hadafka crypto Somali Media waxa uu yahay in 2025 aanu gaarno 100,000 oo rag iyo dumar oo isugu jira Soomaali guud ahaan caalamka idil kala jooga oo ku guuleysta nolosha alyoomka iyo maliibaanayaasha lagu liibaanay inay ka tiranto dhalinyarada Soomaaliyeed. aragtidaas waxaan ku gaari karnaa like-ta, subscribe-ka, share-ka, asxaabtada aad la wadaagto, qaybta hoosena aragtidaada aad noogu reebto. hadafkeenu waa inaanu gaarnaa maliibaanayaasha lagu liibaano 2025 naga tiranta qayb ka mid ah. hawshaas garabkaaga ayay jirtaa suuqa iyo xuraantiisa haddaanu fiirino waxaan arki karaynaa in bitcoin la kala siisanayo $66,881 Mareykanka. waxaan dareemi karaynaa marka kaabka guud ee crypto in hoos u dhac laga dareemi karayo 2.560 iyo jajab trilyan $, Mareykanka uu marayo 3.9% ayuu suuqu hoos u soo dhacay. haddana sidaas oo tahay coinana soo kacayay oo aad dareemi karaynaa in buuqa iyo kala orodka crypto ka jiray dhinaca markay noqoto leverage-ka iyo cabsidu in iyaga aysan taaban. waxaana ka mid ah Litecoin-ka wadaan dareemi karayno iyo dhinaca markay noqoto Ton blockchain, Zabbix protocol isaga naftiisu xogaa ayuu madaxa soo yara qaaday dhinaca trade-ka. afraadka saac soo dhaaf labadaas coin ayaa hoggaanka haya haddaanu fiirino coinanka iyo xaaladahooda kala duwan. ugu bilaaban dhinaca markay noqoto warbixinadii suuqa inaanu fiirino xaaladahooda. coinkan Base la yiraahdo Base Network oo ah coinanka feedka ama oracle-ka qiimaha coinanka iyo daatooyinka kala duwan ee suuqa caadiga iyo suuqyada lacagaha cryptocurrency-ga iyo suuqyada tijaarada intaba isdhex mariya. Jane ku kalifi karayo waxay doonayso aad gadanayso in uu xogaheedii dhabtahay ku keena uu ka shaqeeyo uu yahay sida coinka Jane ninkii la yiraahdo oo kale. aan dareemi karayno qiimihiisu inuu isagu qaali yahay laakiin Base aan dareemi karno in fursadahaas ay ka soo muuqdaan. afraadka saac soo socdaan aan trade u galayno ayaa maanta waxa ay baahiyeen in ay soo bandhigi doonaan xogaha qiimaha la kala siisto 30 shirkadood oo kala duwan oo ku midoobay shabakadan la yiraahdo GMCI-da. arrintan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo coinkan Base Network oo qiimo oracle ama qaab soo xigasho ah oo uu ka soo xiganayo qiimaha dhabta ah ee kambaniyadaas iyo suuqyadooda iyo dadku say wax isu dhaafsanayaan in dunidan kale ee Base Network data streamkiisa waxaan la yiraahdo isticmaalaya ayaa wadi karayaan in xogahaasi ay helaan. waxaana u fududeynaya oo qura Base Network. waxaan dareemi karaynaa coin aad u fara badan oo dhinaca Bitcoin-ka, Ethereum-ka iyo smart contract-ka kala duwan ayaana GMCI-da ku dhex jira indexkooda 30 shay ka kooban. waxaan dareemi karaynaa in kambaniyada SPY-da iyo DGI-da iyo kuwa kaleba ay ku jiraan oo uu noqon doono Base Jane-kii ugu horeeyay kaalin weyn isaga naftigiisu ka qaata markay noqoto suuqaas iyo isdhexgalkooda. waxaan dareemi karaynaa in GMCI 30keedan xoogood oo kala duwan iyo Base iyo shirkado kale oo tiro badan in imika ay bilaabayaan isticmaalka dunida dhinaca DeFi-ga iyo suuqyada kale isku xiri karaya in coinkan Base la yiraahdo uu fursado ka heli karaya arrintaasi. dhinaca trade-kana waan ka fiiri doonaa trade-kana waan ka fiiri doonaa trade-yada aan ka qaadanayno oo jaaniska suuqu uu naga siinayo. saktiga waxaanu dareemi karaynaa kamarigan la yiraahdo Security Exchange Commission-ka waddanka Mareykanku in Ethereum ETF-ka xilliga suuqa uu imaanayo odaygii Gary Gensler ahay uu afkiisa ka cadeeyo uu taagan yahay fasaxa xilli qoraxeedka haddii laga soo noqdo bulshada reer crypto Ethereum ETF ku waa idin furan yahay waadna isticmaali karaysaan laakiin buuqa ka jiro
buuqa ka jira waxay tahay saktiga iyo kaberigan XRP la yiraahdo madaxay iskula jiraan muddo ayayna dacwadoodu socotay waana aragtidii kaliftay in Gary Gensler uu qaato heshiiskan test Hawaii la yiraahdo ee lagu tijaabiyo waxyaabaha security-ga ah inuu dhaho dhamaan crypto waxa Bitcoin ahayn waa security laakiin hadda odaygii asaab Ethereum ETF ansixiyay oo macnaheedu tahay in Ethereum ay u aqoonsatay dowladda Mareykanka hanti ka madax bannaan waxyaabaha security-ga loo haysanayo Ripple dacwadan ayaa loo haystay muddo ayay isku walaaqneed kabariga Ripple wuxuu isku dayay isaga naftigiisa coinkan XRP iyo Ripple inuu kala qaado laakiin Gary Gensler iyo maxkamaduhu waxay kaliftay in sheekadii ay noqoto Ripple iyo XRP coin kala yiraahdo in faraqa la isugu xiro la yiraahdo hala isku tiin ma noo kala foqaysaan sheekadiina ay iyada naftigeedu adkaatay Gary Gensler ayaa isaga naftigiisu shakhsiyan waxa uu taagan yahay Ethereum security maaha laakiin heshiisyo kale iyo coinan kale oo tiro badan oo security maadaama ay jiraan sharci cusub ayaa jiro hadda dowladda Mareykanka hor yaalla madaxweyne Biden go'aankiisa dhabta ah oo bulshada reer crypto hadii uu doonayo inay u codeeyaan laga sugayo oo golaha aqalka sanadka iyo golaha kale ee labada gole waddanka Mareykanka ay ansixiyeen oo la yiraahdo FIT 21 oo keenaya in la yiraahdo saktigu bataatanba cryptaha laga soo hoos qaado inay sharciyad siiso suuqan kale iyo kambaniyadan kale ee suuqyada dhinaca markay noqoto CME-da la yiraahdo iyagu ha ka noqdaan mas'uul oo ha qaataan mas'uuliyadaas oo saktiga ha laga soo raro laakiin haddana Gary Gensler arrintaas iyada naftigeedu waa ku dhageeyay laakiin hadda waxaad moodaa FIT 21 maadaama uu ka soo horjeedo golihii sanadkii xildhibaanadii kale ee go'aawada senatarada Mareykanku ansixiyaan ololaha dhinaca markay noqoto labada madaxweyne adiyaan raahdo madaxweynaha hore waddanka Mareykanka Trump iyo Joe Biden labaduba ay taagan yihiin crypto anaga ma naga tagaysaan bulshada tiro badan oo ilaa iyo 10 milyan ku dhow oo shacabka Mareykanka oo asxaabul crypto ay taagan yihiin anaga ninkii coinan keena aan ka hadlayn aan codku ugu shubayna ninkii kale oo boorsadeena wixii dib ku aan ka hadlaaya codkeena uma hayno ee diriishada ka baxo adigu arintaas sidee bay kula tahay markay noqoto bal in Gary Gensler uu dhaho Ethereum qabobaha markay bilaabanayaan oo qorraxu dunida galbeedka xilli qorraxeedka laga soo noqonayo qabobuhuna soo galayaan Ethereum ETF ku waa afka hore suuqyada lagu kala dareer gareeyo laakiin la iiga dareen coinanka kale shitcoinada arintaas waa nala wadaagi karaysa dad aad u fara badan waxay taagan yihiin dhinaca markay noqoto Bitcoin-kii xaalkiisa interest rate-ka ama koruqaadka lacagta ribada waddanka Mareykanka oo iska socotay cabsideeduna ay jirtay in suuqa odagii Jerome Powell ahaa laga cabsanayay oraahda iyo waxa ka soo baxay carabkiisa inkastoo uu wax isku mujaamuleynayay haddana mujaamuladii gabagabadeedii waxay noqotay aan ma ka hari kara Canada European-ka maan ka hari kara mise Jabaneskan raaca meel uu nafta la qabto waa uu leeyahay Yurub waxaan dareemi karaynaa markay noqoto ECB-ga iyo dhinaca markay noqoto Denmark iyo dhinaca markay noqoto Canada waxay bilaabeen in ribada hoos loo dhigo 25 base point ay dunidaasi hoos u dhigeen laakiin Jerome Powell oo isagana doonta dhinaca ka saaran haddii akhyaartan ay bilaabaan inay wax soo daabacdaan asna waa ku qasbayay waxa uu taagay 2024 waxa waaye ribada kor u qaadideeda waan joojina waxaana bilaabaa inaan jaro oo hoos u dhimo in hoos loo dhimo ribada waddanka Mareykanka base point-yada uu dhimi doono isaga ayaa soo sheegi doona kullayba laakiin waxbay soo kordhinayaan macnaheedu tahay marka aad maqasho riba hoos loo dhigay waxaad ogaataa in dollar la soo daabacay macnaheedu madbacada dollarka daabacda warqada gudana bini aadamku intooda badan qayb ka mid ay caabudayaan hadda ay noqonayso mar kale in la yiraahdo barayska la geliyo daabacado bilaabata dollarkaas markuu soo bilowdo cryptadeenu waa noo kala kacay suuqyadan kala duwan ee dhinaca markay noqoto stockada dunida qayb far badan waa ay kala kacayaan kasoo Jerome Powell isaga naftigiisu u taagan yahay waxaanu qiimeyn doonaa nidaamka shaqada anagoo doonayn suuqa inaan burburino iyo suuqa inuu burburo isaga naftigiisu aan u ogolaanaynin ayaa haddana waxaan isku dayi doonaa bal in arrimaha aan isu celcelino haddii aad u baahdaa warqadihii cagaaraayo jecleedeen waan idin daabacaynaa oo haddaan ribada hoos u dhigayno macnaheedu waa daabacidde haddii la soo daabacdo dad u fara badan waxay taagan yihiin Bitcoin darbigii 100,000 jihaadeedu aaday waana naga tagay fursad aad u weyn ayayna Bitcoin u ka heli karayaa arrin kalena waa ay soo cusboonaato oo ah in waddanka China Bitcoin-ka dowladda China bangigooda dhexe uu u aqoonsaday in Bitcoin-ku uu yahay dahab
laakiin ethereum ayay waxay u aqoonsadeen dhinaca sida suuqadan commodity-ga iyagoo si gaara ugu tilmaamaya suuqa saliidda ceeriinta oo kale dunida shidaal haddii ahaaleed ama waxyaabahan kale dhulka hoostiisa ee dunida wadamadii uu ku manaystay ay ka soo saaraan oo kale ayuu dunida digitalka ethereum China maanta uga yahay bitcoin waa u dahab ethereum qalin iyo wax kale uma aha ee wuxuu u yahay saliid ama shidaal ama wax kale waxyaabahan dhulka laga soo saaro muhiimka ah oo kale ayuu yahay marka laga reebo dheemanka arrintaas waxayna tusi karaysaa in China Hong Kong go'aankeedii hore u qaateen qaybna ka hayeen kolleyba dadkii soo ansixiyay haddana ethereum xaggooda uu ka yahay saliidda ceeriinka oo kale qiimahan dunida markay noqoto keeni karayso tijaarada u far badan oo reer China iyagu naftigoodu inay la ficil galaan dooda adag ee Trump iyo Biden iyo odagii Trump ayo taageer war odagan fid 21 inuu diin ogolaado iska dhaafe koorinkii caadiga oo idinku haystaa oo Gary Gensler oo faraqa ku wata weer diidiya inuu dhige aniga shid koina idin haya tira badan islaantay diina NFT ay samaysay lacagta cryptona dhadhamiyay milaayiinna ii soo diray anaga idinka fahmeene 10 milyan reer crypto reer America aniga codka bis igu ogaada أنا إذا تصير باشا أنا إذا كلا كعدة إيش ترى أبو يهنا دو ضرو ليه كلا وحن بيتكوين هين مع قارنه أو جهة كلا أو قري كلا حندري مكرينا إن حال كفرصة إيريا داسية ده نفتيجه أي كجيران كنا كلا دوان أيام فيرين إن عندنا عمر كان نقطة ترايلك يحل دوده كلا هذا فيرين الصلانة لنا عطريل كمر كان نقطة تضبط حان وحل دري مكريا ما الآد مهمة الصلانة إنه جوجو سلام كأنا أركي كرينو قيمة حان حدي جانس أوجسه هش الصلانة دربيجا بقول أفرتن إلى $1 إلى بقول إلى أفرتن مية حدي أنو نرهدو waxay jaanis u noqonaysaa hadduu derbigan kale ee hadda uu tagay 170 uu ka sara maro in derbiga 200 Solana cagteedii wadadii ahayd uu saaro macnaheedu tahay muddo bil gudahooda jaanis $200 Mareykanka iyo ka badan ayuu Solana noo tagi karaya haddii kalena waxay noo noqon karaysaa tijaabada hadda uu isku dayaya inkastoo hadda 4 saac aan dareemi karayno hoos u socod in uu ku jira ama maalinta daan uu niraado seelka uu ka galaya eriyadan asxaabta ka soo gasha laakiin fursad eriyadan ay uga heli karayaan asxaabta kalena all time high eriyadan markay noqoto sanadkan uu soo gaari karayo fursad u noqon karayo si Solana markale test ama tijaabo kale eriyadan uu ka soo sameeyo haddaan Solana ka tagno oo aan fiirino maalin ahaan waxa soo kabsasho ku jira isaga naftigiisu Litecoin fursad aad u weyn darbigii 700 ayuuna soo galo 79 ilaa iyo 77 saxaabta ka soo heshay 24 saac soo dhaafay nasiib aad u wacan ay leeyihiin waxana macquula eriyada darbiga 800 hadduu toddobaadkan noo jabiyo ama 24 saac soo socota fursad aad u weyn oo dhinaca markay noqoto $100 Mareykanka aan ka heli karayna Litecoin waxaan dareemi karaynaa Rose fursad aad u weyn ka jira suuqu waa lagu kala ordooya dadku budaysu kala haystaan coin aad u fara badan dadku waa minus ay ku hayaan laakiin coin-kan Rose uu taagay aniga ninkii haysta waaye asay borsadiisa lacagta wax u soo kordhayaan laga soo bilaabo 31 May ilaa hadda waxaan dareemi karaynaa madaxiisa kor u jeeday asxaabtii ka soo qaadatay ilaa iyo dhinaca markay noqoto 9 senti oo iminka haygiisa uu gaaray ilaa iyo 13 senti iyo $700 haddana maanta mar kale waxa uu tijaabinayaa darbigan in 13 senti ah uu ka talaabo waxaana macquul ah tareen ahaan in jaanis aan ka heli karayno tijaabada dhinaca markay noqoto Rose in 17 senti iyo dhururuqyo markay noqoto $700 ah aan ku sugi karayno dhihi karno waa hubaalo halkaasuu noo tegi karaya fursad aad u wanaagsan ayaanu ka haysanaa ark ayaa isaga naftigiisu maalin ahaan waxaan dareemi karaynaa gadasho inuu ku jiro eriyadan hadduu ka soo baxa gadashada hadda uu ka helayo ark markay noqotone fursada dhinaca markay noqoto $1 ama 97 senti ayaanu ka heli karaynaa inkastoo 83 imika uu yahay kaas ayaa isaga naftigiisu waxa waysta fursad aad u wanaagsan waxaan dareemi karaynaa maalin ahaan in uu kor u socod isaga naftigiisu haysto waxaana macquul isaga naftigiisu in 48 saac soo socota aanu ka helno fursada dhinaca markay noqoto trailko 16 senti aan ka soo qaadanay ilaa 8 ilaa 19 senti fursada aan ka heli karaynaa hadduu eeba nooga qoro TRP ayaa ku jira soo kabsasho marka loo fiiriyo maalin ahaan waxaana dareemi karaynaa in soo shadar maalin ahaantiisu ay fursad noo sii karayso in derbiga 100 oo uu ka noqonayo uu noo dhaafi karayo 120 iyo 130 TRP aan uga heli karayno
dhinaca kale waxaan dareemi karaynaa aara iyada naftigeedu soo kabsasho ku jirto inkastoo weli maalin ahaan markay noqoto sale ay ku jirto haddii ay kasoo noqoto areadan markay noqoto la yiraahdo 42 sentine fursada dhinaca markay noqoto 49 senti aan ka heli karayno tan aan dareemi karaynaa suuqu iyadoo la kala ordayo weli Telegram coin-koodii waxay taagan annaga kala orad maan qabnaa asxaabtii Telegram joogta oo 4 qoraalkooda u furan yahay malaayiinta ah iyo kuwan game-ka ku dhac ciyaaraya arka annaga sheekadana yaa isgaaraba faanole ay taagan yihiin annaga ma gadayno coin-ko darbigii $10 Mareykanka ahayd aan ku sugoonaa oo qalbiyadeena dhinaca markay noqoto coin-ka ton nooga xiran sida hadda Bitcoin-ka darbiga 72,500 qarbiga inooga xirto taaganahay 72,500 Bitcoin ku buu iska dhaafo darbiga 800 noo galay ile darbigaas anaga xujan ugu ah haddana ton asxaabtu ay taagan darbiga 10 horta ma soo taaban oo war la dhaho asxaabtii suuq hoos u rabtay u rido qalbiga lagu rido darbiga dhinaca laga soo duulay difaacu محر صفي عن محرة كراي أصعد هاي كسي وده لأن عمرك نقطة injective يعني سايا كجرا تريد وحنا دريمي كلنا أصحابته نجلسوا قاعدة تأري ده مركز النقطة $2 iyo $9 in Janis wili aan ku jirno faa'iido $9 iyo $29 senti uu noo marayo waxaan ka sugeynaa ilaa darbiga 35 hadduu darbiga 35 noo soo dhaafo afartameeyada iyo kontameeyada injective cid aan kaga hadlayno male oo aan garteeda ka gelino laakiin waqti ay noo qaadanaya hadda laakiin soo kabsashada 4 saac ay soo socda altcoin cagaha ay dhulka ka soo wada qaadayaan waxaan dareemi karaynaa inaan taaganahay 35 tartiibkeena waxa waaye aan ku tageynaa ruuga dhaclayn base oo iska gadid ku jira soo kabsashana ku jiray oo aan dareemeynay soo kabsashadu hadda bitcoin-ka hoos u soo dhacay ay u kaliftay in haddana mar kale hoos u soo u dhaco hadda waxaan dareemi karaynaa in 37 senti uu marayo laakiin hadda haddii darbiga 37 sentiga madax soo qaadasha uu noo galo fursadaan ka heli karayna ilaa 40 senti in aanu Janis uga heli karayno xogaha iyo warbixinta soo baxaya deertaane ay Janis noo noqon karayaan suwi iska gadid ayuu galay mar kale isagoo noo soo kabsanayo darbiga 19 senti aan ku sugayna laakiin 16 senti dollar iyo 16 senti oo nooga soo noqday hadda waxaan dareemi karaynaa in 99 senti uu noo maray laakiin haddii aad soo gasho afka hore dollar iyo 15 senti cid kama hadlayso Janis fiican oo dhinaca trade-ka ayaadna ka heli karaysaa markay noqoto 24 saac ee soo socda CPR ayaa iyada naftigeedu soo gadasho ama hoos u dhac aan iraahdo ku jirto aad soo gadan karaysaa haddeertaan haddii areadan aad ka soo gashane markay noqoto halka senti ah waxa Janis heli karaynaa ilaa iyo 2 senti in aanu uga heli karayno fursado dhinacaas markay noqoto adreemi karaynaa in node saga naftigiisu maalin ahaan gadasho uu galayo oo soo kabsasho fiican uu leeyahay haddii aan ka soo kabsano areadan imika uu node ku noqnoqonaya ee sentiga in darbiga 2 senti iyo 500 afka hore ay noo tahay fursadana aan ka heli karin dhinaca trade-ka haddii kalena darbiga all time high-ga aan ka agdhawaa karayno 3 senti iyo $200 ay tahay laakiin waxaa noo muhiim ah into aan not aan ku sugno areadan haddaan ka soo galno hadda soo kabsasho maadaama maalmahan uu ku jiray fursadna ay tahay inta aad 1 senti ku soo helayso in Janis far badan uu not aad ka helayso darbiga 2 senti iyo $500 weli Janis fiican waaye aad neeli karaysaa in percentage aad fiican oo ilaa 50% aad trade-kaasi nala sii qaadan karayso warbixinadaas ayaan jeclahay inaan idin kula wadaago barnaamijkeena Crypto Somali Media like subscribe-ka share-ka 100,000 oo rag iyo dumar ah ma liibaanayaasha lagu liibaanay in laga tiro dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku gaari karaynaa koorsadaas aan lacagta ahayn graafyadan iyo Janisadan isla wadaagayno imaa qaybta dhinaca markay noqoto Somali Cryptocurrency Telegramka aragtida qaybta soo noogu reeb muuqaalkan saad u sii wado 100,000 horgey ee banahana kula siiyo annagoo ku nool dunidan lacagaha cryptocurrency-ga oo howd ah howdkeeda laakiin aanan ku foganin boqol sano midkii jiray buuxsha aga buux sameeyey garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu waa shaqo